سولو هذا داوديا waxaan doonayaa in aynu isla eegno waxyaabaha ugu daran ee baraha bulshada bisha Ramadaan dhibaatadii ka jirtay baraha bulshada ma ka nasan doonaa oo ma dhici doontaa in la waayo wiil iyo gabar is haysta wiil qabiil haysta qabiila isku fadhiya social media oo is aflagaadeynaya iyo waxyaabo badan oo la halmaala Soomaali hadaynu nahay waxaanu dhaxal u helnay in baraha bulshada dunida meesha lacago malaayiin ay ka sameeyaan annagu aynu ka sameeyno ka hormarino qabiilo iyo wadiga fadeexeenta waxyaabihii caarkayno ahaa ama sharafkeena ahaa haddii ay ahaan lahayd in gabdho la aflagaadeeyo la xumeeyo la arko rag waaweyn oo maanta gabdhahooda iyo wiilashooda guurgal ay yihiin oo ku maran haween 11 bilood aynu soo dhaafnay ayna soo daashatay qabiil hebel iyo qabiil hebel 11 bilood aynu la daala dhacaynay xaalado arxan darro iyo sharaf darro iskugu jira haddii dunida kale loo fasiri lahaa afkeena ay dhici lahayd in social media nagala xiro aalad kasta isticmaalka social media Soomaaliya aad ay u batay tusaale waxa kugu in qof Soomaaliya la gaarsiin karo 5 maalin ilaa 6 maalin gudahooda 800 ilaa milyan halka waayigi hore laga waan jiray kun in qofka gaaro ay ahayd caqabad aad u adag laakiin hadda taa waxay ka macno tahay in Soomaaliya ay horumartay shay social media inay u isticmaasho waxyaabo badan oo side effect leh ama dhibaatooyin gudaha leh haddaba intaas anoo ka duulayna bisha Ramadaan dhanka khayrka iyo cibaadada iyo wanaaga ma la aadi doonaa se ma la heli doonaa dad Soomaaliya oo ka shaqeeya intaasba haddaba waxyaabahaas dhan bisha Ramadaan lagu jiro aynu maalin walba halkan iskala socon doonaa isla markaasina aan kugu soo gudbin doonaa